nin weyn ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday xeebta liido ee magaalada muqdisho ee Soomaaliya. wuxuu miisaankiisu ka badnaa 7 ebertan waxaana u muuqday inuu dhintay saacado yar ka hor weli waxaa jiray kalluun yar oo ku dabaalanaya biyaha yar ee ku ururay calaashiisa. markii hore dadka tuulada ma aysan ku dhiiran inay u dhawaadaan balse markii gabar yar ay dusha ka fuushay ninka weyn oo ay u gacan haadisay dadkii si degdeg ah ayay ugu soo xoomeen. helitaankan wuxuu ku beeray yaab iyo xiiso isku marqaar waxay baareen gacmihiisa waaweyn carruurtuna dusha ayay ku ordayeen oo ku ciyaarayeen halka gabar kalena ay qoob ka ciyaaraysay sankiisa korkiisa. ninkii ayaa waxaas oo dhan aamusan u daawanayay qalbigiisana murugo ayaa ka buuxday. markii dadkii kala tageen carruurtii oo keliya ayaa hadhay iyagoo ninka weyn ka dhigtay goob ay ku ciyaaraan. ugu dambayn waxay qorsheeyeen inay jarjaraan maydka si ay ula tacaalaan. markii ninkii mar kale soo laabtay wuxuu arkay in maydkii uu bilaabay inuu qudhmo biyo badeedka awgeed sidaas darteed wuu is adkeeyey oo dusha ayuu ka fuulay jidhka weyn. wuxuu ogaaday in gacantii bidix laga gooyey jidhkii quruxda badnaana uu noqday mid aan dhammaystirnayn. markuu u dhawaaday wejiga wuxuu arkay murugo iyo rajo beel ka muuqata indhihii qotada dheeraa ee horeyna ay lumiyeen iftiinkoodii. wuxuu u ekaa markab la dayacay oo ku xayiran xeeb cidlo ah. bilo yar kadib qaybo kala duwan oo jidhkiisa ah ayaa ka soo muuqday magaalada yar. lafihii lugaha waaweyni waxay noqdeen calaamad dukaanka hilibka madaxyaduna waxay noqdeen bakhaar uu qof degani leeyahay. raadkii keliya ee maanta xeebta ka haray oo caddaynaya jiritaankiisii waa feeraha yar ee hadhay qof aan ogeyn xitaa wuxuu u malayn karaa inay yihiin hadhaagii nin weyn.